بسم الله mar haddaynu soo fahnay autonomous numberkii hadda waxaynu imanaynaa waxa loo yaqaano routing protocol classifications. Routing protocol classification waa laba, waa interior gateway routing protocol iyo exterior gateway routing protocol waa laba. Labadaas loo kala qaybinay. Interior haddaan maqalno wuxuu ka dhex shaqeeyaa company-ga dhexdiisa ayuu ka shaqeeyaa. Haddii aynu exterior maqalnana wuxuu ka shaqeeyaa external weeyaan oo wixii intaa ka baxsan wuxuu ka shaqeeyaa different autonomous numbers buu ka shaqeeyaa oo ah company kala duwan dhexdooda ayuu ka shaqeeyaa. Company-yada ayuu kana isku xidhaa, kana company-ga dhexdiisa isku xidhiidhiya. Marka routing protocolski aynu naqaanay waxaanu tixgelinayaa inaad taqaaneen RIP, EIGRP iyo EIGRP, OSPF, ISIS kuwaasi waa interior company-yada dhexdooda ayay ka shaqeeyaan. Laakiin marka company-yadii ay rabaan inay internetka ku xidhmaan waa marka uu imanayo PGP routing protocol ama border gateway routing protocol waa markuu imanayo markaas markaa internetkana la helaya.